aad baan idiin salaamayaa saaxiibayaal tartanka Champions League dib u soo noqday iyadoo isbeddello badan xil ciyaareedkan tartankaasi uu ka muuqdo kulan weyn maanta Barcelona iyo Bayern Munich oo caawa tartankaasi lagu wado min Manchester iyo Ronaldo kulankii ciyaarayaan kama marna falanqaynta kulanka kooxda tartanka Yurub ee Chelsea qodoodu ay ciyaarayaan dhammaan tartankaasi Champions League kulamada laga ciyaaray wareegiisa gruubyada ayaan saaxiibayaal barnaamijka maanta ku soo qaadan doonaa wararka suuqa iyo sidoo kale wargeysyada waxyaabaha laga hadlayana sidoo kale barnaamijku qayb ay ka aan doonaan Cabdulqaadir Xuseen Canshuur ayaan ahay hadii ku bilownana maanta tartanka Champions League dib u soo noqday yani wareegiisa gruubyada xil ciyaareedkan maanta oo bilaabanaya caawa aan iraahdo kulan weyn maanta jiro Barcelona iyo Bayern Munich kulankii ugu dambeeyay waxa xasuustaa 8 gool iyo 2 inay ku adkaatay kooxda kubadda cagta ee Bayern ku darso kulanka maantana Messi waa muqti dheer uu ka maqan yahay kooxda Barcelona kulankaasi ayuu ku hormareynaa falanqayntiisa Barcelona waxay caawa lugta koowaad ee wareegga gruubyada tartanka Champions League ee martigelin doonta kooxda reer Jarmal ee Bayern Munich waxaana ay kulankan ay galayaan iyadoo aysan garoonkuusan ku lug yeelan karin ciyaaryahanka 6 jeer hantay abaalmarinta Ballon d'Or Lionel Messi taasoo dimid laacibka in xil ciyaareedkan suuqa kala iibsiga laacibka kooxda baaca xurta uu kaga dhaqaaqay isagoo qabtay kooxda reer France ee PSG la yiraahdo kulankan xogaha labadan kooxood ee eegnana kulankan ya kii ugu horeeyay ee labada koox tan iyo xil ciyaareedkii 2019 2020 waqtigaas kadib kooxahan ma ciyaarin laakiin kulankaas waxa kulan xasuus ah marnaba aanan ka go'i doonin qalbiyada kooxda kubadda cagta ee Barcelona kulankaasi waxaan xasuusanaa inuu ahaa tartanka Champions League kulan ka tirsan waxaana kooxda kubadda cagta ee Barcelona waqtigaas lagaga adkaaday 8 gool iyo 2 xilligaasi oo ay ku kulmeen quarter finalka tartankaasi Champions League yani Barcelona iyo Messi gooda halkaas ay geystay 8 gool iyo 2 lagu soo xaqay ayagoo oo jigabax kala soo noqday kooxda kubadda cagta ee Barcelona marka la caawiyo wajahayaan kooxdan Barcelona Bayern Munich ayagoo aanan tookan wadanina xidiga Lionel Messi reer Argentina kaasi oo kooxdu xil ciyaareedkan isaga dhaqaaqay waxa leeyahay yani waxa ugu dambeysay guul daraceen kaasi oo kala Barcelona inay kala kulanto kooxda reer Jarmal ama guul darac weyn inay la kulanto tartanka Champions League 1950 ugu dambeysay laakiin 2019 ayaa hadda ugu dambeysay oo Bayern Munich ay ahayd kooxda xasuuq u geysatay kulanka koor Bayern Munich kulankii tartanka Champions League 2020 koor waxa uu guul daradii ugu weyn Barcelona ay haysatay 6 gool iyo waxba ay kala kulantay kooxda kubadda cagta Isbaanyool Bayern Munich hadda ka dambeysay marka caawa mar kale taagnu ay imaanayaan wiilasha reer Jarmal ee Bayern Munich ayagoo doonaya kulankooda ugu horeeya tartanka Champions League inay adkaadaan Barcelona qodoodu waxay doonayaan inay ka soo kabsadaan guul daradii weyneed ee ka soo gaartay tartanka Champions League 2020 dhammaan tartamada Yurub Barcelona iyo Munich waxa ay isaga hor yimaadeen ama ay kulmeen 7 jeer Barcelona iyo Bayern Munich wiligood kuma kulmin leeyahay wareegga gruubyada Champions League tan iyo xil ciyaareedkii 1997 waa waqti dheer marka caawa yani way kulmi jireen kooxahan tartanka Champions League way isku arki jireen laakiin waxa leeyahay taariikhdu waxa leedahay in wareegga gruubyada tartanka Champions League Barca iyo Bayern isku arkaan waxa ugu dambeysay 1997 marka waqti fog weeyaan caawa laakiin way ka duwantahay tartanka gruubyada isku arkayaan kooxahan Bayern Munich waxa guul daraa lama kulminaa leeyahay 18 kulan ee ugu dambeysay tartanka Champions League oo ay banaanka garoonkoodu ay ku soo ciyaaraan yani Jarmalka meel ka baxsan markay ku soo ciyaarayaan Bayern Munich guuldarooyin lama aysan kulminaa leeyahay 14 jeer way adkaatay kooxdan 4 barbardhac ay gashay yani 18 kulan ee biinta ka tahay sidaas 14 guul ay haysataa 4 barbardhac ay haysataa kooxdan reer Jarmal laakiin caawa kooxda Barcelona laga sugayaa in ay soo gabagabeyso kooxdan rikoorka fiican ee ka haysato kulamada banaanka ama aweega ah Barcelona waxa guul dara ah lama aysan kulmin leeyahay kulamada furitaanka ee Champions League tan iyo xil ciyaareedkii 1997 waxaana ay waqtigaasi 3 guul dara ay kala kulmeen leeyahay kooxda Newcastle United waxaana ay bilaa guul dara ay yihiin leeyahay 22 kulan 17 badis 5 barbardhac haysta kooxda reer Catalan ee Barcelona marka in Barcelona wareegga gruubyada laga adkaado yani kulanka ugu horeeya waxa ugu dambeysay 1997 Newcastle United hadda Premier League ka ciyaarta ayaan waqtigaas tartanka Champions League ciyaareysay sidaas ayana Barcelona guul darey kala kulantay si kastaba kulanka caawa Camp Nou ayuu ka dhacayaa
caawa 10 ama 4 haweenimo geeska Afrika ayaa la daawan doonaa Barca iyo sidoo kale Bayern Munich natiijooyinka ka soo baxa kulamadeena barnaamijyadeena xiga ayaynu ku soo qaadan doonaa si kastaba Ronaldo Koeman waxaa la doonayaa in kooxdaasi uu iska dhiciyo reer Jalmar oo awoodda horyaalka dalkaasi Jalmarka iska birigii ugu dambeeyay ama sanadii ugu dambeeyay Barcelona xilli ciyaareedkan isbedel badan lagu sameeyay xidiga waaweyn markay ka tageen kooxdu inay ka tagaan kooxdu waxay ka dhigtay in xidiga kale kooxdu la soo buux dhaafiyo oo Memphis Depay, Sergio Kun Aguero iyo xidiga kale badan oo xitaa daaficay ka mid yihiin kooxda ay yimaadeen marka isku shaandheyntaas Ronaldo Koeman xilli ciyaareedkan uu sameeyay waxaana laga doonayaa in kooxdu uu ka samata bixiyo guud ahaanba sanadii ugu dambeeyay marxaladaha adag ee kooxdu cagaha ay kula jirtay dhanka kalena kulanka kale ee indhaha lagu wadayo waxa weeyaan Ronaldo iyo sidoo kale xirtiisa cusub ee Manchester United Ronaldo 12 sano kadib reer Jalmar Thomas Tuchel kooxdiisu ka sameeyay kooxda Chelsea ayaa bilaabaysa leeyahay ay waxay ku bilaabanayaan inay difaacdaan tartanka Champions League waxaana ay ku hortagayaan koox reer Russia sanad la yiraahdo kulankooda ugu horeeya tartanka Champions League Chelsea sidoo kale ayaa sanad ku soo dhaweyn doonta gigadooda Stamford Bridge waxaana ay doonayaan leeyahay inay guul ay ku bilaawdaan difaacayaasha horyaalka tartanka Europe ee Champions League kooxda Thomas Tuchel waxa ay si kastaba doonayaan in kooxdan kulankan uu noqdo kulankooda ugu horeeya tartanka guul ay ku furtaan marka loo eego xidigaha Thomas Tuchel uu haystay kalsoonida uu ku qabo si kastaba kulankan ayaa noqon doona midkii ugu horeeyay tartamada Europe dhaxmari doona kooxda Chelsea sidoo kale sidii xilli aynan Blues guul dareeyna la kulminaa lixdii kulan ee hore la ciyaartay kooxaha ka socda Russia 6 kulan ee ka hortagtay kooxaha ka socda dalqabuubaha Russia kooxda Chelsea guuldaro kama aysan kulmin 6 jeer ay wajahday koox ka socota dalkaasi guuldaro kama aysan kulmin caawa kulankoodii toddobaadii wajahayaan koox ka dhisan dalkaasi Russia wixii kala yimaadaana waynu aragnaa Chelsea ayaana guuldaro la kulminaa leeyahay 12 kulan ee ugu dambeysay wareegga gruubyada tartanka Champions League iyadoo oo guuldaradii ugu dambeysay soo gaadhay bishii September 2019 markaas oo guuldaro ay kala kulmeen kooxda reer Spain ee Valencia
marka Valencia guuldaradii ugu dambeysay tartan gruubyada kooxda Manchester United ee soo gaartay ugu dambeysay tartanka Champions League kooxda difaacanaysa ayaa kaliya laga badiyay leeyahay laba kamid ah 27 xilli ciyaareed kooxda laga badiyay kooxdan yani Chelsea waxa leeyahay in laga adkaado waxa ugu dambeysay AC Milan iyo Liverpool oo guuldarooyin ay kala kulantay yani markii loo eego oo kale marka sidaas aan leeyahay waxaan kala jeedaa laba kaliya laga badiyay 27 xilli ciyaareed ugu dambeysay tartanka wareegga gruubyada Liverpool iyo AC Milan oo kaliya ayaan sidaas ku sameeyay si guud ah oo dalmarino falanqaynta kulamadaasi waa badan yihiin kulamada laga ciyaarayo kulanka ugu horeeyay waa Sevilla iyo sidoo kale aan iraado kulanka ugu horeeyay caawa waxa uu soo dhacayaa hal saac uu soo galaya caawa waxaana wada ciyaaraya kooxda kubadda cagta Manchester United sidoo kale Young Boys ayadoo sidoo kale kooxaha Barcelona iyo Bayern Chelsea iyo Zenit Dynamo Kiev iyo sidoo kale Lille iyo sidoo kale kooxo badan oo Real qeybiyiin kulamadaasina caawa 10 saac ama caawa 4 saac oo habeenimo ay soo galayaan marka loo eego Geeska Afrika marka kulamadaas natiijooyinka ka soo baxa barnaamijyadan xiga aynu ku soo qaadan doonaa guud ahaan maanta barnaamijka wanaagga inta saaxiibayaal nabadgelyo